waxaa soo baxay warar hordhac oo ku saabsan qaabka ay al-shabaab ku soo galeen hotelka SOL oo ka agdhow madaxtooyada Soomaaliya aagaasi oo ah meel aad loo ilaaliyo aan si fudud lagu soo gali karin. saraakiil kala duwan oo aan la hadalnay ayaa noo sheegay in dagaalamayaasha galay SOL Hotel aysan imaan shalay galinkii dambe ama markii uu weerarku dhacay balse ay meel hotelka u dhow ay shalay ku qaateen waqti dheer. sidoo kalena waxay saraakiisha noo sheegeen in laba arrin ay fududeysay in al-shabaab ay ka soo gudbaan mid ka mid ah kontaroolada ciidamada ee laga ilaaliyo filla Soomaaliya. labadaas arrin ayaa kala ah midda koowaad dhawaanahan waxaa jira fasax ay ciidamada booliisku u haysteen inay ku soo gali karaan dhanka ceelgaab si ay u maraan tiro koob ka socda xarunta booliiska Soomaaliya ee Commandos Policia taasi oo ku taalo ka soo horjeedka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. arrinta labaad ayay noo sheegeen saraakiishu sidoo kalena waxaa jira fasax ay ciidanka ilaalada mas'uuliyiinta dawladda oo booliis u badan u haysteen inay fariisin karaan agagaarka SOL hotel kale oo ka agdhow maadaama aan hub la gali karin albaabka ugu soo horeeya ee madaxtooyada. waana sababtii keentay in hotelka darbigiisu fariistaan iyagoo iska dhigay staff qofka ay la socdeen oo ku jira madaxtooyada. wararka aan ka helnay ayaa sheegaya in kooxdii weerarka soo qaatay ay qaraxyada ku wateen bambagacmooyin badan isla markaana ay iska dhigeen rag wata marduuf qaada cabitaan shaax iyo waxyaabaha kale ee lagu qaylo waana sababta keentay in aan laga shakin bacaha ay wataan. xogta aan helnay ayaa sidoo kale sheegaysa in shalay duurkii ay ka soo gudbeen kontaroolka algaabta isla markaana ay fariisteen ka soo horjeedka hotelka SOL iyagoo iska dhigay rag qayilaya balse waxay damacsanayeen in hotelka galaan markii ay jaanis yar helaan. weli ma jirto war sugan oo ka soo baxaya hay'adaha ammaanka oo arrintani ku saabsan balse waxay noo sheegeen dadkii meesha ku sugnaa in raggan darbiga hotelka koritaankiisa u fududeeyeen kadib markii qof ka mid uu gacmihiisa midka kale kadibna uu ku istaagay isagoo sidaas ku koray dhismaha hotelka. weerarkan ayaa ay shacabka Soomaaliyeed ka baranayaan arrin muhiim ah. weerarkii abaabulnaa ee maleeshiyada al-shabaab ku qaadeen hotel SOL magaalada Muqdisho ayaa banaanka keenay in shabaabku u bedelay tacticadii ay ku beegsan jireen hoteelada magaalada Muqdisho. sida looga bartay shabaabka ayaa marka ay weerarayaan hoteelada Muqdisho waxay weerarada ku bilaabi jireen ismiidaabin balse weerarkii habeen hore ah mid toos ay ku galeen SOL Hotel kadib markii ay xoog ka gudbeen ilaalada hotelkaasi. weerarkani ayaa sidoo kale daa ka rogay inay weli shabaabku ku dhex milan yihiin ciidamada booliiska Soomaaliya kadib markii la arkay in maleeshiyada weerarka soo qaaday ay ku labisnaayeen daraaska ciidanka booliiska isla markaana ay darajada ciidanka garbooda ku taxnaayeen. xeelleerayaasha ayaa waxay qabaan in shamid ka mid ah dagaalyahanada shabaabku aanay marnaba u suurtagali lahayn inay weerar caynkaasi ah ku qaadaan hotel SOL haddii aanay haysan gacan gudaha ah. tani waxay ku sababeeyeen in weerarkaasi ay ciidamada booliisku ka jawaabeen xilli ay shabaabka toogasho ka wadeen gudaha hotelka. waxaa kaloo su'aalo ka keeneen sida fudud ee maleeshiyadaasi uga soo gudubtay kontaroolada adag ee ku gadaaman hotelkan oo kaabiga ku haya aqalka madaxtooyada filla Soomaaliya. kolka laga hadlayo qaabka weerarka SOL Hotel u dhacay ayaa wuxuu daha ka qaadaya inaanay mintidiinta al-shabaab hakan karin dhagaxaanta lagu gooyay inta badan wadooyinka halbowlaha oo isku socodka magaalada Muqdisho si kastoo ay awoodoodu u yaraatay. dawladda Soomaaliya ayaa waxaa loogu baaqay inay wax ka bedesho hanaanka ay ku xaqiijinayso amniga magaalada haddii ay shabaabku bedelaan qorshayaashoodii weerarada. khubarada ayaa ku sheegaya in weerarkan laga baran karo sida ugu khasaaraha yar yahay weerarada kale ee hoteelada lagu beertilmaamaysan jiray sabab ku aadan weerarku aan isqarxin ku bilaabin inkastoo ay qabaan in laamaha amnigu ay qarinayaan khasaaraha dhabta ee weerarkaas u geystay. sida ay hay'adaha ammaanku sheegeen waxaa weerarkan ku dhintay 2 askari 3 qof oo shacab ah iyo 5 nin ee weerarka soo qaaday oo sida ay sheegeen la wada toogtay. khubarada ayaa qaba in weerarka lagu dilay qaar ka mid ah ilaalada hotelka ka hor intaanay ciidamada booliisku ka jawaabin sababta ay laamaha ammaanku u qarinayaan khasaaraha dhabta ee weerarkaasi uu sababay ayay ku sheegeen amar kaga yimid madaxda qaranka. dadkii qaarkii ayaa qaba inay hoos u dhacday awoodii ururka mayalka adag ee al-shabaab ayna awoodi kari waayeen in baabuur walxaa qarxa laga soo buuxiyay ay ku weeraraan hoteelada magaalada Muqdisho kadib markii ciidamada xasilintu ay adkeeyeen amniga caasimadda. markii aad fiiriso weerarkii 24kii bishii July ka dhacay xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay weerar weyn oo ay soo maleegayaan dagaalyahanada al-shabaab waxaana loo fasirtay in ciidamada ammaanku ay fahmeen qidada weeraradooda. arrinta kale ee inaan iftiimino u baahan hoos u dhaca ku yimid weeraradii al-shabaab ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa weeye gulufka bilowday horaantii bishii Agoosto ay ciidanka xoogga dalka ku qaadeen deegaanada ay ka arrimayaan shabaabku. sidoo kalena hoos u dhaca ku yimid weerarada shabaabka hubeysan ee dagaalka dalka ka wada ayaa waxaa la tilmaamaa inay ku lug leeyihiin khilaafka muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhex taagnaa amiirka al-shabaab Axmed Cumar Abu Cubayda iyo ku-xigeenkiisa Mahad Warsame Qalay Mahad Karatay. haddaba si dawladda Soomaaliya ay u sii xaqiijiso guulaha ay gaartay sugidda amniga ee Muqdisho ayaa waxaa filla Soomaaliya la gudboon inay dib u hubiso ciidamada gacan saarka leh al-shabaab iyo inay dardar geliso gulufkii military ee ururkaasi lagu wajahayay.